الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan isxasuusinaynaa walaalayaal taariikhdii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. runtii qof kasta dadka oo dhan may wada garanayaan taariikhda nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa waxa weeye dad daraaseeyey oo bartay mooyaane. nabigeenu waxa uu ku dhashay calayhi salaatu wasalaam magaalada maka ee markaa deegaanka la yidhaahdo xijaas ee dhulweynaha markaa carabiya ama waxa weeye sacuudi carabiya. nabi maxamed waxa uu dhashay ama waxa weeye beesha la yidhaahdo haashim oo ka tirsan markaa qabiilka quraysh. waalidkii waxay dhinteen asaga oo markaa da'yar nabigu calayhi salaatu wasalaam, waxaana soo koriyey awowgii waqti yar kadib. markaas mas-uuliyadda nebi maxamed waxaa la wareegay adeerkii abu daalib oo gurigiisa kusoo barbaariyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. haddaynu ka waranno akhlaaqiyaadkiisii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ama hab dhaqankiisii si uu u dhaqmi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam, محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عرب بن عبد مناف بن مغيرة بن قسي بن سيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن اللؤلؤ بن كلاب بن فيه أي النبي عليه الصلاة والسلام. دلشديسي يبربارنتيسي nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa saa aynu usoo sheegnay iyo abtirsiinyihiisii nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka xaqiiqatan nabigeenu isagoo ahaa nebiyullaahi raxma, nebigii raxmadda, nebigii naxariista, nebigii wanaagga, ayaa waxaa soo badanaya baryahan dad aflagaadeynaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam. dadkaasoo ay waajib inagu tahay qof kasta in uu ku difaaco shay kasta oo markaa uu ku difaacayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam. saa darteed ayaa waxaan kusoo dhaweynayaa walaashay nasra oo iyaduna ka hadlaysa cayda la caynayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo waajibka inaga saaran cidda caynaysa. nasra kusoo dhawow walaalo, maasha allah. adeegan walaalo mahadsantahay. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaalkay sheekhayga aadaan ku salaamay axmed. walaalayaal waxaan igu salaamay salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhammaan ummadda muslimiinta meel walbaa joogtaan. walaalayaal salaan kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo gaalkii xumay wacalka dhalay ahaa oo faransiiska lagu sheegayey naclad allaha ku dhacdee wayba ku dhacday bay maanta haddii la joog bilaa waaba kow aan ka dilaa kaas waaba ku sheena tegi lahaa. walaalayaal xabiibkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam mar walba saliga nebiga hala basho. soomaali waaba dhagax waxba ma maqlaan. walaalayaal khayrkii wanaaga laga hadlo, culumo iyo qof walba waa laga hadlay. walaalkayga axmed sheekhayga uu ka hadlay, dad walba ka hadlaan xumaanta laga dheeraado, rabbi ha la xuso iyo nebigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam ha lagu dabadaydo. walaalayaal xumaanta iyo waxyaabaha xun ilaahay neceb yaha laga dheeraado, khayrka ha laysku baraarujiyo. maanta noolo beri ma noolo, adduunka waa laga socdaa, gudi yaraa la gali, kofan yarun baa ku raacaya iyo camalkaadaa shaqaysatay. waa arkay soomaali badan oo waxyaaba xun aa la sheeg karayo saan dhahaya una waxaa iska daaya, ambay ugu naca ambay ku jeclaada. laakiin khayrkii wanaaga laga hadlo mar walba, salaada iyo nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam ha lagu dabadaydo. videogana hala sheegarayo, dadkoo dhanna ha ka hadlaan. soomaaliya dhagax baa tiina wax maqla. haddana dhul qurbaan joognaa, dhul gaalaadaan joognaa, dhulkayga ma joogno. ha la isku duubnaado, ha la kaco. maanta aniyo walaalkay dareenkayga aad iyo aad u kacsan yahay. wax maqla. intaasaan ku gabagabeynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. aad baad u mahadsantahay walaal nasra. dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayna inay sii sheer gareeyaan videoga
channel-ladana maaragtay subscribe-ka ay saaraan si khayrku u bato marka barakallahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idin ballan qaadaynaa oo kale inaan fiidiyoyo maalin walba insha Allah soo gelin doono channel-lada aad baan idin salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu